السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan waa daalacaan news channel. daawadayaal meel kasta joogtiin waxaan idinleenahay kula wanaagsan. xubinteen waxaynu ku soo qaadanaynaa ardayad natiijo hoose ka keentay imtixaan oo is-daldashay. gabar sanadka koowaad ee waxbarashada ka dhiganaysay macadka Indian Institute of Technology ee IIT madrasa ee magaalada Chennai ee gobolka Tamil Nadu ee dalka India ayaa la sheegay in barnaamijyadii shalay oo zubdi ahayd meedkeeda laga helay qolka ay ka deganeed jaamacadda. ardaydaasi oo lagu magacaabi jiray Fatima Latiif oo 19 jir ahayd ayaa waxaa la arkay iyadoo iska soo lalmisay marwaxaad ku xiran qolka ay sida gaarka ugu deganeed jaamacadda ee tirsigiisu ahaa 346. abaarihii 11 barkii barqanimo shalay ayaa la sheegay in meedkeeda la helay kadib markii ay ardayda jibiyeen qolkeeda kadib markii ay soo xaadiri weyday fasalka. marxuumada Fatima Latiif ayaa la sheegay inay asal ahaan ka soo jeedo ama ay degan tahay deegaanka Kerala ee dalkaasi, waxaana la sheegay in hooyadeed halkaasi ay timid kadib markii lagu wargeliyay dhacdadaasi. maamada lagu magacaabo Saajida Latiif waxay ka argaxday geerida gabadheeda iyadoo sheegtay in maalmihii la soo dhaafay gabadheeda ay xaaladeeda fiicneen isla markaana ay ka cabanaysay xanuun. si kastaba ahaatee waa ardayadii labaad ee dhigatay jaamacadaha dalka Hindiya ee 4 maalmood ee lasoo dhaafay isdila sida ay sheegeen booliska dalkaasi, waxaana isdilkooda loo aaneynayaa sida la sheegay sababo la xiriira mashaakil dhanka waxbarashada ama dhibcaha hoose ay ka keenaan imtixaanaadka jaamacadaha. daawadayaal xubinteena waa nagata waxaad kala socoteen daalacaan news channel, waanu ku mahadsantihiin daawashadiina meel kasta oo aad joogteen.